marka waxaan rabaa maanta waxaan rabnaa inaan fiirino maadaama Soomaaliya usbuucan 1 Juulaay loo dabaaldegi doono sanad guuradii 65aad ee ka soo wareegtay Soomaaliya markii xornimada qaaday waxaan rabaa maanta inaan fiiriyo maxaa isbedelay Soomaaliya dhaqaalaheeda fursad u tahay Soomaalida inay dib u eegaan madax banaanida ilaa waxaan u dabaaldegayna waa maxay Soomaaliya xorey noqotay Soomaaliya waxay heshay madax banaani waxaan rabnaa madax banaanida dhaqaalaha Soomaaliya waa halkee marka intaas ayaan ka hadli doonaa oo ugu badan afar waxaan inta aan ku guda jiro aan xoog saari doonaa qodobadan horta waxaan ka hadli doonaa madax banaani economic sovereignty waa maxay madax banaani dhaqaale waa maxaan asal u ah ilaa waxa laga fiiriyaa Soomaa qofkan uu caafimaad qaba waa la yaqaanaa Soomaa marka madax banaani dhaqaale maxaa asal u ah maxay ka koobanta waxaan kaloo ka hadli doonaa waana meesha ugu muhiimsan oo take away-ga kulanka maanta 1960 Soomaaliya markii xornimada qaaday iyo maanta dhaqaalaha farqiga u dhaxeeya waa maxay ma jiraan waxyaalo 1960 laga dooday oo maanta laga doodayo waxyaalo guul laga gaaray ma jiraan horta maanta message-ka ugu weyn ee kulankeena waa qodobkaas waxaan kaloo ka hadli doonaa maxaa caqabad ku ah madax banaanida dhaqaale ee Soomaaliya caqabadaha haysta waa maxay waxaan kaloo ka hadli doonaa sidee Soomaaliya ku gaari kartaa madax banaani dhaqaale maanta adduunka waa ka warqabtiin dadka 3 qaab ayaa maanta loo guumeystaa midda koowaad waa maskaxda oo qofka fikirkiisa midda labaadna waa dhaqaalaha midda saddexaadna waa awoodda ciidanka marka saddexdaas anaga midda dhaqaalaha maanta fiirinayna Soomaaliya maanta 1960 ma joogno oo Talyaaniga ama Ingiriiska u joogo marka madax banaani dhaqaale waa maxay madax banaani dhaqaale wax kale looma jeedo waxa loola jeedaa in wadankaas go'aanadiisa dhaqaale inuu u madax banaan yahay uuna gaari karo asaga ama wadankaas oo aan ka baqayn saameyn dibadda u imaatay ama duruufaha dhaqaale ee dunida ka jira markaan dhahayno go'aanada dhaqaale economic decisions waxa ugu muhiimsan waa maxaa la soo saaraa see loo soo saaraa halkee laga soo saaraa markii la soo saarana halkee la geeyaa oo waxyaalaha basic u ah dhaqaalaha meelaha wax soo saarka waxaasoo dhan waxay soo isgalayaan siyaasadda dhaqaale marka wadankan siyaasadiisa dhaqaale ma u madax banaanay maanta caalamkan aan ku noolnahay waxaa jira wadamo badan oo aan u madax banaaneyn nidaamkooda dhaqaalaha laakiin kor looma sheego laakiin waxaa nasiib wanaag ah Trump markuu yimid inuu adduunka u sheegay wadamada dhaqaale ahaan madax banaan iyo kuwa aan madax banaaneyn awal waxaa la sameyn jiray markii shirarka la isku imaado qolka markii la joogana wadamada indhaha loo gaduudin jiray markii banaanka loo soo baxana waxaa laga shaqeyn jiray diblomaasiyadda hala wanaajiyo xuquuqda insaanka hala ilaaliyo laakiin hadda Trump wuu bedelay wixii gudaha la isku indhaguudin jiray hadda banaanka la isku indhaguudiya waa ka warqabtiin teeramkii hore NATO ururkan ay NATO ku midaysan yihiin wuxuu yiri wadan kasta ha bixiyo miisaaniyadii loogu talagalay wadamada Jarmalka Koonfurta Korea iyo Japan oo muddo dheer go'aan ka gaaray inay ciidan sameystaan dib iskaga dhigay ayaa Trump markuu yimid hadda waxay wax ka bedeleen miisaaniyadooda difaaca inay isku tashtaan marka wadamo saas oo kale waxaa jira dhaqaale ahaan aan madax banaaneyn laakiin kor aan loo sheegin marka maxaa lagu gartaa wadankan inuusan dhaqaale ahaan uusan madax banaaneyn waxaa kamid ah waa u tagi doonaa qeybaha dambe wadankan horta go'aanadiisa dhaqaale ee waxa la soo saarayo iyo qaabka loo soo saarayo iyo siyaasadda dhaqaale ama siyaasadda dhaqaalaha markii laga hadlo 3 shay saldhig u ah midda koowaad oo ah fiscal policy-ga dawladda dakhligeeda qarashaadkeeda canshuuraha waa fiscal policies-ka waxaa kaloo saldhig u ah monetary policies-ka oo mas'uul ka yahay central bank-iga oo ah in la xadido lacagta dhaqaalaha ku dhex wareegaysa iyo midda saddexaad oo siyaasadda dhaqaalaha saldhig u ah waa waxa loo yaqaan structural reforms
waddankan inuu tallaabooyin qaadi karo oo qaab dhismeedka dhaqaalaha wax laga bedeli karo run ahaantii qaab dhismeedka dhaqaalaha waxaa loola jeedaa haddii waddankan dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay beero ama waxa beeraha ka imaado dowladdu waxay samayn kartaa structural reform waddankan waxaa loo rari karaa service warshadaha hadba meel ayaa loo rari karaa mar kastana waxay ku xiran tahay siyaasadda marka madax bannaani dhaqaale waa waddanka inuusa go'aanadiisa iyo siyaasadiisa dhaqaale uu gaari karo isagoo aan pressure iyo culays ka haysan waddamada kale ama dhan kale haddaan ka fiirin maanta duruufaha jira waddanka awood muu leeyahay inuu go'aan ka gaaro arrimaha dhaqaalihiisa marka adduunka maanta caqabadaha ka jira waa maxay oo dhibka ku ah madax bannaanida waddamada maxaa caqabad ku ah waddamada maanta waxyaalaha caqabadaha ku ah waxaa ka mid a waxaan rabaa saarfeygan inaan idinla wadaago qolo ayaa cilmi baaris waxay sameeyeen qof kasta waxaa la weydiiyey halka qatar oo kuugu daran 2025 sheeg qatarta kuugu daran oo aad ka baqaysa waa saarfey qof kastaa la weydiiyey midka kuugu daran qof kasta wuxuu ka jawaabay soo maaha meeshaan waxaa lagu soo bandhigay tobanka top 10 shay ee dadka ka baqaan oo 2025 inay dhacaan oo khatar ku ah dhaqaalaha dunida nolosha iyo siyaasadda tobanka ugu khatarsan ugu daran 4 ka mida dhaqaale la xiriira meesha ka aragtaan 4 ka mida tobanka khatar ee dunida laga baqaayo maanta 4 ka mida waa wax dhaqaale la xiriira 4 dhaqaalaha la xiriira maxay yihiin marka waa midka saddexaad oo ah geo-economic confrontation waa midka saddexaad ku ka ah midka kale fiiriya economic downturn midka saddexaad waa lack of economic opportunity or unemployment midka afaraadna waa inequality 4taas shay tobanka qatar ee maanta cabsida laga qabo oo dunida ay ka baqayaan inay 2025 dhacdo 4 ka mida waa dhaqaale la xiriiraan marka midka koobaad geo-economic confrontation waa maxay in arrimo dhaqaale la isku dagaalo waa ogtihiin dagaalkaas hadda uu jiraa wuxuu u dhexeeyaa Shiinaha iyo Mareykanka dagaalka canshuuraha waa geo-economic confrontation waxaa kaloo jira dunida ka jiro loolanka badda cas yaa controlaya Soomaaliya badda cas xuduud ahaan waxba saameyn kuma laha laakiin Soomaaliya way u dhowdahay markii laga soo tago gacanka cadan baabilmandabna waa u dhownahay Red Sea-gaas maanta adduunka waxaa la isku hayaa Red Sea-ga iyo baabilmandab meesha laga galo yaa gacanta ku hayn doona waana ogtihiin waa sababta Ethiopia heshiiska ay u gashay Somaliland waana dana siyaasadeed oo guud oo ka dambeeyo ah Mareykanka iyo wadamo waaweyn marka waxyaalahaas caqabadahaas wadamada waxay hoos u dhigayaan madax bannaanidooda wadamada waxay hoos u dhigayaan madax bannaanidooda marka waxaa kaloo jiro hoos u dhaca dhaqaalaha shaqo la'aanta Soomaaliya maanta shaqo la'aan baan ka jirto waa ka warqabtiin Soomaaliya marka doodaas waa taaganta oo shaqo la'aan ma jirto mise dadka shaqaysanay marka doodaas waxaan qabaa seminar gaar in laga dhigo laakiin ani dadka aaminsan ah kamid ah shaqo wadankan way taalaay laakiin dadka inay shaqaystaan ma rabaan dooda laga qabaa oo u imaan doonaa waxaan rabaa marka inaan u imaado maxaa saldhig u ah madax bannaani dhaqaale maxaa saldhig u ah marka waddan markaa rabtid inaad cabirtid inuu dhaqaale ahaan madax bannaan yahay maxaa ka fiirinaysaa waxaa ka fiirinaynaa qodobada meesha ku qoran oo ugu muhiimsan midda koobaad waa qodobadan meesha ku qoran tiradooda waa 6dan waxay saldhig u yihiin ama qofka uu ka qiimeyn karaa in waddankan dhaqaale ahaan uu madax bannaan yahay horta midda koobaad waa policy independence waddankan siyaasadiisa dhaqaale iyo go'aanadiisa dhaqaale inuu madax bannaan yahay waa midda koobaad midda labaad oo aan ka fiirinayna waa maxay waa monetary authority waddankan lacag ma leeyahay lacag ma soo saaran karaa lacagta suuqa ku jirtana ma xukumi karaa
magaalada waa ogtihiin ayaana waxaa ka bilowday magaalada shiida ka jira waa ka warqabtiin dood noocaas mar bilaabay marka shiid magaalada shiida ka jira waxaa la rabaa inaad tarjuntaan aniga dadkii tarjumay waa isku dayay inaan fasiro moogtahay waagii kacaankii markay hees soo baxdo waxaa jira rag heesta intay fasiraan siyaad bar u fasiri jiray oo dhihi jiray heestan waxaa laga wadaa saas iyo saas marka hadduu xanaaqan xabsi u diri jiray hadday hees iska caadi tahay faruhu ka qaadi jiray marka waagii ay soo baxday magaalada shiida ka jira waa isku dayay inaan tarjumo waxyaalaha laga hadlayo shiida magaalada ka jira ama dhaqdhaqaaq lacag ma lahan dadku waxay ula jeedaan lacagta dhaqaalaha ku dhex wareegaysa ayaa hoos u dhacday anaga waa isla fahmaynaa tiimka kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha because money supply-ga xaddiga lacagta ku jirta suuqa waa muhim hadda inteena meesha tiimkeen dhan haddii maanta lacagna loo qaybo $100 qofka $100 gud muu ku ridaaya suuquu la aadaya soo maha mid shaax ku caba mid dhar gata mid bajaaj ku raaca mid dhar ku gata mid cunto ku cuna waxaasna waxaa ka bedelaysaa money supply-ga waxaa loo yaqaanaa multiplier effect markaa $80 maqaayadda siis asagii muxuu sameynayaa $10 uu faa'iido inay u tahay laga yaabo 70 kale muxuu sameynaa alaabuu kusoo gaday korontuu bixinaa biyuu bixinaa haddana kiisii oo kale uu isticmaalayaa qayb marka that's what we call multiplier effect-iga oo money supply-ga marka waagii sheet waxaa loola jeedo waxay xaddiga lacagta suuq ku jirta ayaa hoos u dhacday maxaa keenay waa dood kale marka shaqadaas yaa qaabilsan bangiga dhexe ayaa mas'uul ka ah inuu la socdo xaddiga lacagta dhaqaalaha ku jirta markay badatana waa laga saaraa markay yaraatana waa lagu soo daayaa qaabka loogu soo daayo waa taqaaniin waxaa ka mid ah reer galbeedka waxay isticmaalaan interestiga waxaa kaloo la isticmaalaa reserve requirementiga bangiyada waxaa lagu qasbaa depositka ay qabtaan percentage ka mida inaysan isticmaalin marka bangiga dhexe markuu rabo inuu investment magaalada ku daayo bangiyada waxaa laga yareynaa keydka lacagay keydiyaan waxaa la dhahayaa percentage-ka 20 soo meeyin waxaan ka dhignay 10 marka bangiga muxuu helayaa 90% inuu suuqa gelin kara lacagta markay ku badatana maxaa la dhahayaa 30% cil marka qaabkaasaa loo kontroolaa laakiin maanta Soomaaliya culeysay ayaa iska jira waxaa kaloo jira wadanka inuu madax bannaan yahay lagu cabiro trade autonomy inuu wadankan u madax bannaan yahay yuu la ganacsana yuu alaab dhoofinaa yuu ka soo dhoofinaa heshiis ma geli karaa waxaas heshiiska trade agreementiska waxyaalaha lagu saleeyo waa maxay waa national interest hadda waa ogtihiin shiinaha wuxuu Trump wuxuu shiinaha ku haysto waxaa weeye national interest-iga kambaniyada gudaha ee Mareykanka ayaa waxaa ka xoog batay kambaniyada Shiinees maxay uga xoog bateen cost of production mushaarka afar Shiinees ay qaadanayaan waxaa laga yaabaa inuu qaato hal nin oo Mareykan marka hadda maxaa dhacaya marka shaygii lagu sameeyay Mareykan gudihiisa iyo ka banaanka Shiinaha laga keenay waxaa laga yaabaa inay raqiisnaadaan ka Shiinaha laga keenay marka qofku wax gadanayo economiga waa taqaanii qofku waxaa dhahnaa rational waa qofka rational maxaa loola jeedaa meeshii wuxuu fiirinayaa dantiisa ay ku jirto marka qofka economiga hadduu yahay hadduusan rational lahayn economiga ma baratid $10 jeebka hadday kugu jirto waa inaad fiirisid maanta shaah haddaa cabtid benefitka aad ka helaysid iyo $10 haddaad bajaaj ku raacdid ama dhar aad ku gadatid kee faa'iido badan markaas waxaa tahay qof rational laakiin hadday tahay lacagtan ilaaha keenee birina ilaaha keenayo iska isticmaal macnaha waxaa laga yaabaa rationality-ga meesha inay ka baxay marka waa trade autonomy-ga qodobka saddexaad ee wadanka lagu qiimeeyo inuu madax bannaan yahay waxaa ka mid ah regulatory power-ka wadankan awood ma u leeyahay inuu shuruuc dhaqaale mid ganacsi uu dejin karo kana fulin karo wadanka oo dhan su-aashaas maanta Soomaaliya haddii lagu cabiro Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxaa laga yaabaa Soomaaliya inaysan 100% aysan xukun marka sidaas darteed waxyaalaha madax bannaanida hoos u dhigaya ka mid inay alaab ku soo gasho aad ogeyn alaab aad rabtay inaysan bixin inay baxdo marka culeyskaas oo dhan ayaa meesha ku imaan doona qodobka kale oo afraad oo muhiimka waa fiscal discretion-ka dowladda inay dakhli heli karto qarashna bixin karto go'aanna ka gaari karto meesha xoogga saarayso iyo meesha xoogga saaraynin waxaa kaloo muhiim ah resource control dowladdan ma controli kartaa kheyraadkeeda
maanta Soomaaliya waa ogtiin caqabadaha ugu weyn haddaan tusaale u soo qaato badda Soomaaliya waxaa dhibaato ku haya muddo dheer dadka qaar waxaa laga yaabaa galbeed inay qoraan burcadbadeed Soomaaliya burcadbadeed waxaa uga daran nimanka illegal fishing nimanka sida sharci darrada uga kalluumaysta badda Soomaaliya dhibaatada ugu weyn ay ku hayaan waxaa kamid ah ani thesis-kayga qayb kamid ahaa dhibaatada ay ku hayaan waxaa kamid ah inay isticmaalaan wax loo yaqaano illegal fishing practice qaabka loo kalluumaysto oo sharci darro ah adduunka lama ogola shabaagaha iyo shabaqa iyo kuwa la midka kuwa waxaa jira qaada xataa u gaxaanta iyo coral reefska geedaha yarka ay badda hoostiisa ku jira maraakiibta qaar 5 kiiloomitir shabaq ku tuuraya wax allaala wixii soo galana waa qaadaya intaas waxaa ka daran intuu markabka badda joogana wax allaala wixii qashin u isticmaalana baddu ku tuura marka dhibaatada Soomaaliya ugu daran maanta burcadbadeedii la sheegay reer galbeedka qori jireen waxaa uga daran illegal fishing waana waxyaalaha Soomaaliya madax banaanideeda dhib ku ah caqabad weyn ku ah badda Soomaaliya maanta qofkii rabaa iska soo galo qofkii rabaana ka bax burcadbadeed Soomaaliya dib ku ahaayeen mise wanaagii u ahaayeen maybe inay wax ka bedeleen money supply-ga hadaa xasuustaan xilligii burcadbadeed ee kacsaneed magaalada lacag iska taagay guryaha qaar area banaadir lambar 4 1 milyan ay gaareen guri 100,000 lagu ogaa maalmo kadib waxaa la arkay 1 milyan inuu gaaray Nairobi-na way saameysay marka case-kaas marka laga soo tago resource control-ka waa Soomaaliya caqabad weyn oo madax banaanida Soomaaliya caqabad ku ah waxaa kaloo caqabadaha intaas ugu muhiimsan waa 6 aan ka hadlay marka wadan marka qiimeynaysa madax banaanidiisa 6 aan ka fiirinayna marka sharaxaadooda ma geli doono wixii su'aal ka qabtaan waxa waa sharaxaadooda slide-ka kuliyada u reebi doona adig soo akhrista meesha waa meesha ugu muhiimsan hadda maanta Soomaaliya TikTok Facebook waxaan ka dabaaldegaynaa because meelaha marka mirto waxa ku arkaysaa mid caalan la taagan oo isku sawiraayo wuxuu rabaa xurriyadda inuu dabaaldego Soomaaliya adiga dhaqaalaha barataa waa inaan meel fadhiis 65 sano kadib Soomaaliya maxaa u hirgal haddii kale xafladda qalinjibinta waa la kaareebaya sababtoo ah wixii waa inay kaa muuqdaan oo aad ku digrisid oo ku qarawdid oo ay kaa soo horbaxaan marka waxaan rabaa meeshaan inaan xuso laba qaybood aan kala qaado 1960 iyo 2025 maxaa common economic issues 1960 maalintii Soomaaliya la yiri xoraati oo xurriyadda ay Soomaaliya labada gobol la isku daray arrimihii taagnaa maanta kuwa taagana jira kow maxaa kamid ah lacagta kamid ah currency Soomaaliya 1950 hadda kor ina fiidiyowaas aragteen laga yaabaa Soomaaliya daakhiliyadda markii loo ogolaaday inay dawlad ku meel gaara oo ismaamulaan dawladda Cabdullaahi Ciise 1950 dawladda Soomaaliya waxaa la sameeyay guddiga lacagta Soomaaliyeed guddigaas base-kooda intuu ahaa Soomaali iyo waxay isku jireen Talyaani xafiiskooda wuxuu ku yaallay Rome guddigaas waxaa loo xil saaray Soomaalida inay lacag noocay yeelanayaan Talyaanigu wuxuu u soo jeediyay 3 option wuxuu yiri lacagta Talyaaniga qaata lacag iska dhaafa maalinta xurriyadda qaataan lacagta liiraha Talyaaniga isticmaala option ka labaad wuxuu yiri waxaan sameynaynaa lacag cusub laakiin waxaan ku xireynaa Talyaaniga waxaa jira wax loo currency pegging economic lacag markaa soo saarto waa inaad lacag kale ku xirto Soomaaliya ku jaangoys wuxuu yiri Talyaaniga ku jaangooy Soomaalida labadaas option waa diideen waxay anaka lacag gaar ah rabnaa oo Talyaaniga aan ku xireynin magacyadeena leh sawiradeena leh 1950 dhamaadkiisa lacag la soo saaray loo bixiyay Soomaaliya hadda Google ka ka baastiin waa helaysi laakiin 1960 markii la gaaray wali doodii lagu soo laabtay marka lacag Soomaaliya noocay u baahan tahay kalarkeeda iyo intee noqonayso maanta hadda doodaas waa taagan tahay 2025 waa ka warqabtay bangiga dhexe iyo dawladda Soomaaliya waxay muddo waa maqasheen oo lacag cusub la keenaa lacag cusub hatta lacag ayaana loo sameeyay Suudaan lagu dhacay Facebook waa ku aragtay lacag in rabay Soomaaliya loo soo saaray oo Suudaan taali qoladan rapid forces in lacagtaas dhaceen qota 1960 meesha aan taagnay iyo maanta ku waxa ka lacagta midda labaad waa maxay low domestic revenue
1960 dowladda Soomaaliya waxay ka caawinaysay dowladda la dhisay dakhli yari oo dowladda ah sababtoo canshuur waagaas waxaa la qaadi jiray dekedaha bas maantana meeshii la taagan yahay dowladda Soomaaliya waa ogtihiin miisaaniyadda dowladda Soomaaliya 40% ayaa wuxuu yahay dakhliga gudaha 60% waa maxay waa taageero dibadda ah 1960 meeshii la taagnaa midda saddexaad oo 1960 la taagnaa maantana la taagan yahay waa maxay dependence on foreign expatriate waaragtay waraysiyada odayaasha ay ka sheekeynayaan wasaaradda hebel markii la dhisay waxaana loo keenay 2 nin oo Talyaani 2 nin oo Ingiriis wasaaradda inay nala dhisaan horta maanta Talyaani iyo Ingiriis wasaaradaha ma dhex joogaan laakiin advisorada dowladda ku jira ee advisor ku magacaaban ee hay'ad lacag ka qaata mashruuc advisorkiisa ugu dambeeya waa qof ajnabi oo hay'adaas ay qortay marka wali maxaa ku tiirsanahay foreign expatriate shuruucda asaas sameynaa warkaas hadda aad magaalada linka maqlayaan ee xir midda afar shanaad macnaheedu in ajnabi ku tiirsanahay ma Soomaali insa aqoon lahayn saas uu fahmi macnaha waa madax banaanida dhaqaale dhibaatooyin Soomaaliya hadda ku ah 1960 ku ahaa Soomaalida maanta maalin ka aqoon badan yihiin mujir midda shanaad weak public financial management isla xisaabtanka iyo transparency-ga 1960 dhibaato ka jirtay hadda xasuustaan buug ayaan dowladda soo bandhigay aadacada uu qoray oo nooshiisa uga sheekeynay waxa ku jiray in lacaga deeqo la siiyay baarlamaankii ee dhaheen anaka aan qaadano oo ay ku isticmaaleen safarro iyo gunnooyin waan aragteen page Cabdiraxmaan Shakuurna in lagu soo bandhigay inaan markuu aragteen oo qoraal noocaas oo kale marka buug kalena waa ka akhriyay marka wali problemkii waa jira midda lixaad Soomaaliya 1960 wixii taagnaa oo maanta taagan waa maxay markii la isku biiray waqooyiga iyo koonfurta waxa problem uu ka dhacay sidee loo mideeyaa labada system waqooyigana systemkooda Ingiriis u ahaa Talyaani koonfurtana muxuu ahaa Talyaani u ahaa luqadda isku mid meeyeen qolada Ingiriis lagu soo tababaray kuwaana Talyaani isku laajad maaha af Soomaaliga waa lama qori jirin ogaada oo Soomaaliga si aad u qoran yahay Laatiinka uma qorneen markii isku keenay xataa waxa dawladda ay ku wareertay garaadooyinka inay sinto waxa la sheegay qolada waqooyiga in mushaaraadka ay ka badnaayeen kuwa koonfurta ila Talyaaniga shiidu iska aha wax badan u bixin jiray Ingiriiska xawaa mushaaraadkiisa fiicnaa wixii dawladda dib maanta waa ogtihiin wali doodii way taagantahay Soomaaliland gaar ay taagantahay koonfurtii intaas waxa ka daran maalin kasta waxa la mideeyaa shuruucda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka meena meeshii wax u eegaa la taagiyay 1960 waxa hadda isku haysto waa ogtu ka warqabtay caqabadaha ugu waaweyn oo taagan waa maxay sharci markii la keeno ka maamul goboleedyada yaa isku imaado wasiirka maaliyadda ee federaalka iyo wasiirka maaliyadda ee dawlad goboleedyada isku imaado shuruucda in la iswaafajiyo ilaa hadda waxa laga heshiin lahayd canshuuraha in la mideeyo oo hal meel lagu shubo 1960 yaaba ka fududeed oo dadka Soomaalida ka dib yaraayeen waqti yar ay ku qaadatay in canshuuraha la mideeyo laakiin maxaa lagu guuleystay meena dhibaato in ka sheekeeyo mar rabo waxa lagu guuleystay control of a private sector Soomaalida maanta markii loo fiiriyo 1960 waxaan gacanta ku haysanaa 100% private sector keen 1960 shirkadaha ugu waaweyn bangiyada ugu waaweyn waxa iska lahaa ajaanib area xamar weyne waxa deganaa jaaliyad aad u badan oo Talyaani iyo Carab u badan marka Soomaalida awood private sector ku xaba gacanta kuma hayn ninka uu fiican caano keen jiray bas iyo xaaba wax lagu shiito dabka iyo marka yaa gacanta ku hay dhaqaalaha maanta ajaanib Soomaali maanta yaa gacanta ku hay Soomaali midda labaad oo faa'iido ah maxay control over the means of production beeraheena waxa gacanta ku hay Talyaani iyo Carab qodob kale oo saddexaad increased human capital capacity 1960 maanta markii loo fiiriyo maanta Soomaaliya aqoon badan yihiin ilbaxsan yihiin safareen wax badan ay sameysteen marka kuwaan waa lagu guuleystay laakiin kuwa la taagan yahay waa lixdaas meesha ku yaal waxaan rabaa maxaa caqabad ku ah madax banaanida Soomaaliya waxaa caqabad ku ah waxaan rabaa inaan soo koobo
صوتك دقيقة كو حسابته معايا هذا waxaan diidaa kulliyadda inaad dhahdaan awla xiisad dhib ku qabnay nin kala noo keenteen aad u jeedisaan kulliyadda marka kulliyadda saa uga qaado waxyaalaha qaar waa ka boodi doonaa Soomaaliya marka madax banaanideed maxaa caqabad ku ah qodobadaan caqabad ku ah kow midka ugu horeeya waa weak governance iyo corruption maamul xumida maamul xumida markii la dhahayo waa maxay in hay'adaha aysan system lahayn dadka ka shaqeeyeen ay shaqada aqoon u lahayn uusan systemna ka jirin meesha waxyaalaha loo yaqaano weak governance corruptionka kaas ku dheeraan maayo kaas waa mowduuc qof kasta uu ku takhasusay uu ka sheekeyn karo corruptionka intuu leeyahay Soomaaliya caqabadaha ka jiro marka Soomaaliya waxyaalaha caqabad ku ah kamid ah institutionada Soomaaliya waa weak xagga structure-ka shaqaalaha waxa dhan culaysa ka jira waxa kale Soomaaliya caqabad ku ah ku tiirsanaanta taageerada dibadda iyo lacagaha xawaaladaha waa in shay miisaaniyadda dawladda boqolkiiba 60 hada miisaaniyadda ugu dambeysay dawladda meeqeeda 1 bilyan dhibic 20 iyo something milyan ee Soomaa boqolkiiba 60 waa lacaga taageera ama IMF-ta World Bank-iga dawlado waxa bixiyaan madax banaanida Soomaaliya caqabad ay ku yihiin Soomaa weeri waa ogtihiinoo qofka maanta hadduu qadar kale caqabad ku tahay dawladda rabta Soomaaliya inay soo gasho qolay tagaysaa maamul goboleedyada mid kamid ah u tagaysaa kaas ay la macaamilaysaa dawladda federaalkana kama warqabto midka shanaad waa geopolitical conflict khilaafka dunida ka jiro dagaalka bariga dhexe dagaalka Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxeeya loolanka aan kula jirno Ethiopia iyo wadamada la midka waxaas oo dhan dhibaato ay ugu yihiin iyo midda ugu dambayso ah oo ugu muhiimsan low public awareness on economic issues in dadka Soomaalida xoogooda aysan ka warqabin dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka jira iyo sida dhibaatadaas loo xallin karo inaan laga doodin waa caqabadahaas intaana qodob la isku daray waxay caqabad ku yihiin madax banaanida Soomaaliya kan waa weak governance-iga sorry kan waa kii aan ka hadlay weak governance-iga Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku soo koobo kaliya dadkan hadda reebaadiye kuma jiraan Soomaalidu waxay dhahaan aqoon xumo abaar ka daran waxaa loo jeedaa maamul xumo abaar ay ka daran tahay marka waxa ugu daran Soomaaliya maanta caqabadaha ugu waaweyn ee waxay ka dhasheen institutionadeena oo daciifa iyo maamulka xun si guud sidee Soomaaliya madax banaanida loo soo celin karaa loo xoojin karaa Soomaaliya hadda way madax banaan tahay laakiin waxa uu leeyahay economic sovereignty iyo madax banaanida dhaqaale sidee loo xoojin karaa intaan qodob waa muhiim midka koobaad waa maxay investing in domestic manufacturing industries domestic in la maalgeliyo wax soo saarka gudaha maanta waa ogtihiin hilib ariga dibadda laga keenay 2 sano ka hor social media waxaa ka socday cambo dibadda laga keenay oo isku qabsado marka waxaa muhiim ah in la xoojiyo la maalgeliyo wax soo saarka gudaha waa midka koowaad midka labaad investing in education and skill development in la maalgashto waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha in la horumariyo because dadka markasta ay wax bartaan hadda maanta amniga Soomaaliya ka jira boqolkiiba waxaa sidii kala 80 waxaa sabab ah dadka wax bartay oo aad u badan sababta qof markuu wax barto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo dhibaatooyin u geysan lahaa ama loo geysan lahaa inuu ka badbaado ama waxyaalo badan uu iska shaqeeyo uu ka xishoodo midda saddexaad in shuruucda Soomaaliya la hagaajiyo oo shuruuc la soo saaro shuruucna la dhaqan geliyo midda afraad waa fiscal discipline waa maxay Soomaalida marka waxa ula jeednaa economic mugd waxa ula jeednaa dawladda wixii soo galay inay ku jaangooyso qarashaadkeeda ee isla ekeysiiso maanta hadii $100 hadda u tahay $100 inay soo galayso oo ka war qarashaadkaada 130 ka dhigtay suurtagal miya marka fiscal discipline akhlaaqiyadkaaga xagga fiscalka economiga waa eber marka fiscal discipline waa number 1 haddii lagu soo siiyo baawraac $30
وأنا حسابي بي ال مرة بجاج مرة صدق كات بيش وأنا سلك كيسيس ما على وعتني شم كي مرة سنة ده باورعي أي قوي هذا ده economic مبرتيد finance مبرتيد accounting مبرتيد هاي أنا نفسي مسكعديدو يملها تفوق إلى مسكعديد because صدق دولار هذا معمول ويسو باورع الكسوسي بري institution معمول كتار قاليس because discipline كابو كوفا ديمب ما كمان توي كده باورع أي قوي على كامل متكشنات و good governance معمول وناك كاسكو ديرام ماي معمول وناك وامحي إن سياسة إجرام dad aqoon u leh meesha joogaan structure-na uu jiro intaas ugu muhiimsan midka ugu dambeeya in suuq loo helo wax soo saarka gudaha in loo shaqo tago waxayna tay u dhoofin karna suuqa adduunka la abuuraa Soomaa waa in wadan la tago exhibition macrad laga qayb galo la bandhigo shirkado la barto in suuq loo raadiyo wax soo saarka gudaha waxaan rabaa marka gabagabadii aan joognaa gabagabada marka waxaan kusoo gabagabeynaa qodobadan meesha ku qoran maanta waxaa la joogaa waqtigii Soomaaliya madax bannaanideeda la xoojin lahaa maxaana sabab u ah donor fatigue Soomaali si wax loo siinayo waa lagu daalay aad loogu daalay meeqa sana Soomaali la biilay 30 sano ka badan waa lagu daalay iyo rising economic nationalism and decoupling adduunka maanta qolo kasta inay isku tashtaa go'aan lagu gaaray xilli corona waa ka warqabtiin Hindiya waxay go'aan ku gaareen bariiska inay yareeyaan ee dibadda u dhoofinayaan Indonesia iyo Malaysia waxay go'aan ku gaareen saliidda palm oil ka saliidda ay ku taqaaneen in saliidda ay dibadda u dhoofinayaan inay yareeyaan waa ogtiin xilli koroonihii caaga saliidda wuxuu gaaray $9 ka badan mar wuxuu ahaa 3.5 3.2 something marka sidaas darteed waxaa loo baahan yahay economic vision aragti dhaqaale waxaa loo baahan yahay siyaasado intaasna waxaa asal u ah in lagu xoojiyo xasilooni siyaasadeed inuusan buuq dhicin dagaal dhicin marka xasilooni siyaasadeed in aad ka qayb qaadatid waa markay wax kacsan yihiin Facebook qaylaha ku darin adiga iyo TikTok hada adiga qayladii iyo buuqi wax ku sii dir xasilooni siyaasadeed la gaari maayo xasilooni dhaqaale la gaari maayo gabagabada waxaan filayaa fiidiyoga waa la duubay YouTube page aan leeyahay waxaan dhahay YouTuber ah adiga TikTok la soo dhigi doonaa waayo ra ka xishoon jiray TikTok leeyahay laakiin iyo Facebook marka meelahan soo dhigi doonaa jaamacadana waa haysaa fiidiyoga waa ka qaadan kartiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha Injineer Balaag inuu waqtiga dhageystay waana ugu mahadcelinaa Maxamed Salaad Maxamed Cabdi macallimiinta oo dhan dhammaan waana ku faraxsanahay waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh